hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena hayaanka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena hayaanka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay umahad celinaya shirkadda doTERRA iyo hay'adda Healing Hands Foundation oo ka socdaan Mr. Sheldon Wardwell iyo Mr. Emmanuel oo noqonaya gudoomiyaha dhakhtarka waxaana la socda hadda ragii leerka gelin lahaa injineerada biyaha waxa kale oo la socdo naga dambeeyana oo arki doontaan qolooyinkii technicianska dhakhtarka qalabeynta isku xidhxidh lahaa إن شاء الله بإذن الله الكريم بشر دمات كده بشر صدقك وانفرنا دخترك قالب كي ويناي هذا النواك دكتور لقى صوصاري تشد كسنة نحن كل شيء وصوص صعرة أنتي علايس كي ويناي نوغان سكرت نبيله هراء. On behalf of the doTERRA Healing Hands Foundation, we're grateful to be here with the community leaders of Sanag, and we're very excited to be back to work on the hospital. We have an excellent team of medical professionals and technicians led by our partner ResponseMed. I want to thank ASMED Foundation and doTERRA Healing Hands for pulling people from all walks of the world to come here in Erigavo for a common purpose of giving health to the community. I want to thank you, the community, for a great reception. It's overwhelming. We did not expect this. But it's out of love and care that I think all of you are here with us today. hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena hayaanka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena hayaanka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay